السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندي سلامي دمان قيارت كحرن جانل كسو دوادا عشر كنا مانتو وحوكو سابسن ياي اكس راي محل دعا اكس راي وحالي ريادا مركا لابا حبين او كواغا اي ازدفاع ايان ايغا امرايا حبين كلا اوليه عدوغاغا سيده معناها waxaa lagala jeedaa x-ray sideedaba waxay tahay laba xubin oo kuwaaga inay si dadban isu difaacaan ama si dadban ay wax u ataagaan bal example ka hortaada ka muuqda okay example kan hadii aan u fiirsano waxaan ku yiri x-ray waa marka laba xubin oo kuwaaga ay isu difaacayaan ama ay u weerar tagayaan si dadban macnaha waxaan kala jeedaa bal hadda example kan hadii aan fiirino fiiri square kaas fiiri h1 haddii qalcadan imaadoy dhahdo check boqorkan haddii dhahdo check waxa dili doona bishopkan balse ka horto meeqa xubina square kas lagu hayaa bal fiiri labadan xubin horta si cadaan ayaa loogu jeedaa balse x-ray-ga waxa loogu magacaabay waxay tahay waa xubintan kale waxa hadda x-ray sameynaysa maxay tahay sababtoo ah square kaas waxay u daaficaysaa ama ay u weeraraysaa si dadban yacni markii qalcadan aan dhaho check waxa qasaba bishopka inuu idilo then bal fiiri marka xubintii way soo baxday shaqadeedii oo x-ray ay u daaficisay waxaana dili doono qalcadan kale ama kuwinta laftirkeeda hadaa ku qaadateen is okay waa checkmate so marka waxaan ku weydiinayaa isleeyahay square kaas waxaa hayo saddex sababtoo 1 and 2 laga yaabaa inay ku muuqato xubintan kale inaadan arkin that's why xubintan hadda indirect ay u weeraraysaa si dadban ay square kaas u weeraraysaa taas ayaana waxaa loogu magacaabay x-ray example kale aan fiirino okay example kan kale hadii aad u fiirsato sidee baad x-ray u sameyn lahayd fiiri square ay labadaada xubin u daafacayaan ama ay u weerarayaan si dadban waa inaad ka faa'iidaysataa x-ray waxay tahay in qalcadda dambaan dilaya sababta maxay tahay waxay isu daafacayaan si dadban oo indirect ah fiiri qalcaddan ما دافع هذا ما سكوير كاس مركز عادة وفيرسد سكوير كان ما أتجرينا يا ومايا سكوير كاس ده فيرسد قلعة ما أتجرينا نو بل سي مركي أندلو لبضع قلعة حين نقول دونا سيم أو هدي وكان دلنا كان أيدلي دونا هدي وكان تابتن كان قلعة أيدلي دونا that's what we call X-ray example كاس ده عاد أن فيرينو example كان إسكود ضيا إن عاد حلسان please إسكود ضيا قش هذا إذن سيو و checkmate in 2 moves وأنا x-ray ما حل سي مسكود دايدي أوكي سكوير كان f8 وحا كوين تيدا يقل عديدا يكوهيان attack بل سوى سيد ضبن و x-ray هدي أن قل عدال كان ديغو وحا قصب كوين تاين يدش لكن وحا x-ray كوسمين دونو كوين تيدا that's checkmate أوكي example كان هو ديد أن أركينا وحيات X-ray attack بس كان هو X-ray defend كان هو الدفاع صوت أنساس كلها وحي تاي هذا مذوق وحود دياري إن checkmate أوده D1 بس ما أوسن كتلا جرين إن يجرتو X-ray defend أو فردها وحود دي بي سترتيب عين عسكري قاتو وانقادن دونا وحوسكو دي دونا attack بس هو حاجة X-ray defend وجد وكل دوين مركا x-ray defend دعي كرتو x-ray attack أيا دعي كرتو أوكي example كان عدي أنا سكوت دينو بلاقي واحد ديارنا إنه أسكري كان باس بونكا يقدلو وكدلو بيشبكا إياه قال عدا لابد وقوع تجرينا بس عمود دافعنا سي x-ray marka horena horta sideeda marka example xalinaysid waa in wax walba ay ku sawiran yihiin inta aadan move sameeynin ana waxaan kala jeedaa farad example kan oo kala arag ka soo qaad wax move ma sameeynayno kaba soo qaad hadii aan qalcadan check dhahno macnaha ma ahan kaliya baazalada in aad maskaxda ka fiirisid oo sawir aad ka eegtid laakiin real game kan waa inaad sawir ku muuqdaa inta aadan move sameeynin waxa qasaba in sawir ku muuqdaa sidaas awgeed hadda aan fiirino annagoo wax move sameeynin horta aan eegno haddii aan qalcadan check dhaho horta ma aadi karo h8 sababtoo ah check ayaan dhigi doonaa qalcadanna waan dili doonaa haddii ay qalcadan aniga idishadna
then queen ayaa imaan doonto, so that's not a possible. Ama G8 ama H8 labadaba macquul maaha. Waxaa qasab marka inuu boqorka horta kor u soo baxo, then horta askarigayga waa difaacay sax, laakiin weli waxaa attack ku hayo waa labo xubin oo waa qalcaddii iyo bishopkii. haddii aan marka fardahan aan ku difaaco isla markaasna qalcadda aan weeraro, qalcaddan waxaa qasab ah inay meesha ka baxdo haddii la waayo fardayga wax dilo, balse bishopkan ayaa dilayo. bishopkan haddii uu dilo waxaan ku dili doonaa bishopkayga kale, sababtoo haddii aan qalcadda ku dilo askarigii aan maanta dhan u dadaalaya waa la dili doonaa. marka hore waxaan leeyahay check, waxaa qasab ah boqorka inuu soo aado H6 and then farda ayaan waxaan ku weerari doonaa qalcadda. waxaa qasab ah bishopka in laygu dilo, qalcadda kuma dili doono ogaada, sababtoo ah askarigayga weli ma rabo inaan dhiibo. haddii uu bishop ku dilo waxaan ku dili doonaa bishopkii, saas awgeedna askarigan weli waa haystaa, waanan ka saari karaa qalcaddan meeshaan. waa tahay example-kan ayaan kusoo gabagabeynaynaa. bal isku day in aad samayso X-ray attack. maxaa lisay isku dayday waa tahay waxaan dhihi doonaa queen G1 check and checkmate. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان إذا سلام يا عيارتا فلن مقالكان الله شير كريو.